السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود وهذا أدي هذا ومهتمتين ومالنتي كوباد عيد الأضحى عيد مبارك عيد وناكسنا يا ند الله هاي ملكستو أو أد كعيدين مقال كانوا حربنا ندي كل وذاقو دوقة مقالة منيابوليس أو شلي كل واقعي إن أو إسعسلي تريه بوليس كه مقالة منيابوليس براين أوهير سببتها وإسكو عسلي محيط هاي ayaan idinla wadaagayaa muxuusa ahaa baaritaanka lagu waday ku dhawaad 2 sano ee la soo dhaafay taliyaha booliska ee magaalada Minneapolis iyo lagu bedelay oo si ku meel gaar ah xilka u sii haynayna sidoo kale waan idinla wadaagayaa gobolka Texas shalay waxa ka dhacay doorashooyinkii isreebka ee aqalka sanadka oo xisbiga Republicaanka laba xubnood oo muhiim ah ay ku tartamayeen mid madaxweyne Trump uu taageeray iyo mid xilka soo hayay 24 sano ka badan ayaa tartamayay doorashooyinka isreebka ayaa u soo baxaya doorashada November ayaa la sugayay haddaba musharaxii Trump uu taageeray ayaa shalay soo gudbay kii uu san taageerinna waa uu haray arintaasi maxay xisbiga Republicaanku ay ka leeyihiin dimuqraadiyiintu rajo ma ka leeyihiin 30 sano kadib in kursi aqalka sanadka ay gobolka Texas ka helaana waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada shalay galinkii dambe ayaa waxa shir jaraa'id qabtay duqa magaalada Minneapolis Mayor Jacob Frey shirkiisa jaraa'id waxa uu ku saabsanaa inuu ku dhawaaqo iscasilaada taliyihii booliska ee magaalada Minneapolis Brian O'Hare taliyahaasi waxaan ognahay taliye dadka Soomaalida ah ee gobolka Minnesota ku dhaqan gaar ahaan Minneapolis si aad ugu dhow ayuu ahaa oo wada shaqeyn dhow ay kala dhaxayso waxaan ognahay howlgaladii ciidamada ICE ay ka sameynayeen in uu si aad ah dadka Soomaalida xitaa suuqa weyn ee Carmel Mall oo buuqanayo dadka Soomaalida si dhow ay u wada shaqeynayeen marka taliyaha booliska ee magaalada Minneapolis sidaan ognahay waxa magacaaba taliye kasta duqa magaalada Minneapolis ayaa magacaabay markiisii ugu horeysay November sanadkii 2022 markaas kadib cabashooyin xubno ka tirsan dawladda hoose oo dumar ah oo ka imaanayay inuu xiriir hoose oo galmo u la lahaa ayaa soo baxday waxaana loo magacaabay shirkad qaas ah oo baarta bishii August ee sanadkii 2023 cabashooyinkaasi marka taliyaha booliska waxaa lagu amray inta baaritaankaasi uu socdo in uusan qof dawladda hoose ka tirsan uusan kala hadlin arintaasi marka baaritaankii waa la soo gabagabeeyay reportkiina duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey ayaa loo keenay horta wax dambiya waa lagu waayay taliyaha booliska eedeymihii loo soo jeediyay oo in xiriir galmo oo hoose qaar dumar ka tirsan dawladda hoose uu la lahaa laakiin waxa baarayaashu ay ogaadeen intii baaritaanka ay wadeen in faragelin uu ku sameeyay baaritaankooda taliyaha booliska ee magaalada Minneapolis Mayor Jacob Frey baaritaanka faragelinta uu ku sameeyayna maxay ahayd waxa jirta telefoonada dawladda hoose ay siiso shaqaalaha dawladda hoose marka telefonkii dawladda hoose ay siisay ayaa taliyaha booliska waxa uu ka taray mid ka mid ah dumarkii lagu eedeynayay inuu xiriir la leeyahay contactigi ayuu ka delete gareeyay arintaasi waa qaladka uu galo faragelinta uu sameeyay faragelinta labaadna waxa ahayd in qof ka tirsan dawladda hoose uu kala hadlay baaritaankii socday uu ku yiri telefonkii dawladda hoose ay siisay waa iga qaateen maxaa yeelay baaritaan ayaa la igu wada marka labadaasi arin ayaa maayarka magaalada Minneapolis ama duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey waxa uu yiri waa jabin kalsoonidii shacabka uu jabiyay taliyaha booliska sidaas darteed maadaama baaritaankii guud ee lagu waday inuu xiriir hoose oo galmo uu la lahaa mid kamid ah amaba ka badan ba qof ka badan dumarka ka shaqeeya dawladda hoose ee Minneapolis maadaama lagu waayay haddana waxa lagu helay faragelinta uu ku sameeyay baaritaanku intii uu socday sidaas darteed waxa uu yiri waxaan taliyaha booliska ku wargeliyay in aan talaabo ka qaadi doono talaabadaasina ay xitaa qayb ka noqon karto in xilka aan ka qaado markaas kadib waxa uu yiri waa uu iscasilaadiisiina waa uu ii soo gudbiyay markaas kadibna waan ka aqbalay waxa jirta in 20 maalmood ka hor uu duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey uu dib u magacaabay taliyaha booliska bishan hadda aynu ku jirnay ee May 7deedii ayuu mar kale dib u magacaabay taliyaha booliska maadaama markasta oo dawladda hoose ay dhacdo taliyaha booliska uu la dhacayo 7dii bishan May ayaa dib u magacaabis uu ku sameeyay shalay oo 26kii ahaydna taliyaha boolisku waa uu iscasilay haddaba waa kan duqa magaalada Minneapolis oo shalay galinkii dambe shir jaraa'id oo degdeg ah qabtay isla markaana ka warbixinayay sababta keentay iscasilaada taliyihii booliska ee magaalada Minneapolis Brian O'Hare
Today, I have an extremely difficult announcement to make regarding Police Chief Brian O'Hara. Last year, we received an anonymous complaint alleging the chief had engaged in sexually intimate relationships with city employees. When complaints or allegations come forward involving any employee, especially someone in a position of leadership, they are reviewed thoroughly and independently. That was the case here. An outside investigation was conducted, extensive interviews were completed, and numerous staff participated. Several months ago, that investigation concluded, and we received a report stating that the allegations were not substantiated. Those allegations remain not substantiated. However, today, I received a report of findings from an additional investigation that showed Chief O'Hara interfered with the investigation process. Specifically, investigators found that he intentionally deleted a contact card for an individual from his city-issued cell phone during the original investigation in an attempt to shield that evidence of his connection to the person from investigators. And even though he was instructed not to discuss the investigation itself with anyone, he told another city employee that his city cell phone had been taken from him for the investigation. Although the investigators have concluded that this interference does not change their ultimate conclusion contained in the original report, in other words, the allegations of relationships with city employees, the interference itself is a breach of trust. Because of that, I informed the chief that I would be disciplining him up to and including discharge, and he resigned. I have accepted his resignation. sidoo kale duqa magaalada Minneapolis Mayor Jacob Frey waxa uu sheegay in xilliyo adag taliyaha booliska ee magaalada Minneapolis uu soo shaqeeyay waxa kamid ah weerarkii kaniisadii Annunciation Church oo waliba arday waxay ku baranaysay waxa kamid ah howlgalkii Metro Surge oo ciidamada ICE in ka badan 3 bilood ay ka wadeen magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul waxa uu sheegay in uu ka qayb qaatay dib u habeyn lagu sameeyay booliska magaalada Minneapolis iyo sidoo kalena in ciidamo fara badan lagu soo daro booliska magaalada Minneapolis waana uga mahad celinaya ayuu yiri howlahaasi guulaha ku saleysan uu gaaray intii taliyaha booliska waxa laakiin waxa uu sheegay ilaa iyo taliye cusub uu ka soo magacaabayo ku xigeenkii Brian O'Hara haweeneyda la yiraahdo Katie Blackwell ayaa si ku meel gaar ah u sii hogaamin doonta ciidanka booliska ee magaalada Minneapolis waa kan markale duqa magaalada Minneapolis oo arrimahaasi ka hadlay. Chief O'Hara has served this city through extraordinarily difficult moments in Minneapolis history, including the shooting at Annunciation and Operation Metro Surge. Under his leadership, we made real progress, from reform efforts to rebuilding the department, to bringing in new officers and strengthening public safety across the city. In many respects, he's been successful in his responsibilities as chief, and I'm grateful for his work. But my responsibility is first and foremost to the people of Minneapolis and to maintaining confidence in the institutions that serve them. That responsibility must come first. As for next steps, Assistant Chief Katie Blackwell will serve as the acting chief effective immediately. I have full confidence that she will provide stability, continuity, and strong leadership for the department during this transition. dhinaca kalena gobolka Texas shalay waxa ka dhacday doorasho muhiim ah oo Israa'iil kursi ka tirsan aqalka sanadka labada xisbi ee Republikaanka iyo Dimuqraadiga si weyn ay u sugayeen qofka soo bixi doona waxa ku tartamayay Senator John Cornyn oo ilaa iyo sanadkii 2024 sano kursigaasi ku soo fadhiyay iyo waliba Ken Paxton oo xeeraryaha guud ee gobolka Texas ahaa waxa ay tartameen bishii March sidaas darteed labadooda midkood 50% codadkii la dhiibtay ma uusan helin John Cornyn ayaa ka horeeyay Ken Paxton oo ilaa 41% helay doorashadii March halka sidoo kalena uu Ken Paxton 40% uu helay marka doorashadan ku celiska labadooda oo kaliya ayaa tartamayay laakiin isbedel ayaa yimid oo Trump ayaa toddobaadkii hore waxa uu taageeray xeeraryaha guud ee gobolkaasi Ken Paxton waxa uu yiri John Cornyn xilli aan u baahnaa inuu garab istaago ma uusan garab istaagin sidaas darteed taageeradii Trump darteed doorashadii shalay dhacday waxa ku soo baxay Ken Paxton oo 60% ka badan codadkii helay sidaas darteedna 24 sano John Cornyn kursiga uu ku fadhiyay November marka la gaaro uma tartami doono laakiin dadka falanqeeya siyaasadda waxay leeyihiin Trump xisbiga Republikaanka gudihiisa awood ayuu ku leeyahay oo qofkii uu taageero waa uu soo baxa
laakiin doorashooyinka guud ee November marka la gaaro taageeradiisu sidan miyay sii ahaan doontaa mise isbedel ayaa ku imaan doona. waxaa la tartamaya Ken Paxton oo isagana fadeexooyin gooni ah wajahaya bisha November marka la gaaro James Talarico oo ah nin da'yar oo dimuqraadi ah oo hadda u soo baxay xisbiga dimuqraadiga taageero weyn dadka Latinoga ka haysto. ninkan hadda Trump uu taageeray oo shalay doorashooyinka Trump ku soo baxay ee Ken Paxton fadeexooyin dhowr ah ayaa dul hoganaya. waxaa ka mid ah inuu xaaskiisii qayaanay oo qof kale oo dumar ah uu xiriir la yeeshay sidaas darteedna ay kala tageen oo waliba ayna furiin aad u xun oo maxkamad gaaray ay ku kala tageen isaga iyo xaaskiisii hore. xitaa waxaa jirtay in la soo galo joojiyo oo xilka qaadis lagu sameeyay oo baarlamaanka gobolka Texas la soo hor istaajiyay markii dambana aqalka sanadka ee gobolka Texas ay wax dambiya ku waayeen. marka xisbiga dimuqraadigu waxa ay leeyihiin ceebahaasi uu leeyahay Ken Paxton oo Trump uu taageeray shalayna soo baxay ayaa noo suura gelin karta in 30 sano kadib kursi sanada xisbiga dimuqraadiga ay ka helaan gobolka Texas. waxaan arki doonaa marka doorashada November marka la gaaro in Ken Paxton iyo James Talarico ma dimuqraadiyiinta ayaa kursi ka heli doona gobolka Texas mase taageerada Trump ilaa iyo November waa ay sii socon doontaa oo kursigaas xisbiga Republicanku waa ay xajisan doonaan. waan arki doonaa waxyaabaha ka soo baxa. aad iyo aad u mahadsantahay.